dhoodaan baa ilaahay u naxariisto wuxuu yidhi geedku korayaba ninkaan baritaarayey anna laanta ii goynayaan gacalkay moodaayey adigu isagoo xildhibaana oo barka batuungolihii ku jira oo mushahar badan qaata sidee baad adigu u damiinatay waxaan isru xildhibaankaaga oo xaragoodo xildhibaanada kale ka xaraga bato somalilan mid baan hadda boolojiis ka siinaya laba nin ayaan somalilan maroodi jeex dadkii ka iibinayay baan ku jiraa ee lahaa dahab baan idiin waday war dahabkan nala qaata dahabkii labada nin wuxuu ahaa cabdikariin axmed mooge maayarka isagu dahabkii uu ka qaaligaroobayo wuxuu noqday dheeman waka hargeysa iyo caasimadda siduu u sameeyey iyo green bayna ka dhigay xildhibaankaygina uu igu gudcadaada maar buu noqday markaa somalilan waxaan leeyahay war maar ahaan idinkamaan iibin barkhade amba dahab baan moodiyey somalilanna waxaan leeyahay weliba dowladda ayadan qaaligaana waxaan leeyahay madaxweynuhu kow ka yahay madaxweyne daynka iga soo bixi aan xildhibaankaa u qaaday ee laygu xidhayo ama somalilan waa masaajidaan ka dawarsanayaaye xildhibaankaygii gaadhigan u qaaday baa laygu xidhayaaye war somalilan ii soo gargaara oo iga soo gaadha markaa gurigayga seexda habeenna bowramaan seexdaa habeenna berberiye burcaan u baxsadaa oo waranka maxkamadaha suuqi ma maro maalintii mamar habeenkuma iska marmaraa bismillahi raxmaan raxiim waxaa hadda barbarkayga fadhiya boqor axmed iimaan warsame oo ka mid ah madax dhaqameedka somalilan boqor warbaahintu waxay helaysaa warqaddaa waxaad ku saxeexan adigay kugu socotaa oo xildhibaan barka jaamac batuun lacag diina u qaaday oo gaadhiya bankiga premier bank bay ka socotaa waxaana suurtagala in warqaddaas adiga ay lacagtaas muddo dhaaftay xildhibaanka lagu leeyahay adiguna aad damiinka ka tahay dad badani waxay leeyihiin waxaa suurtagala in boqorkaba la xidho bal ugu horreyn warqaddaa ma ka warhaysaa lacagta ugu damiinatay xildhibaan barka jaamac batuun warqaddan yaa ku soo gaadhsiiyey axmed daahir oo anugu dee briman banka wuu ila soo hadlay waxaan moodayna arrintan dhammaataye yaa warqaddan yaa mediyaha geeyey yaa ku soo gaadhsiiyey anu warba kamay balis warqadda horta adigu warqad ma jirtaa inaad horta marka hore barkad batuun aad lacag u damiinatay lacag gaadhigiisa imika wato weliba way jirtaa laakiin briman banku dee aniga digniin buu soo siiyey wuxuu yidhi warqaddaas lacagtaas soo bixi waxaan moodayeyna arrintaas dhammaatay laakiin inuu weli in la bixin deenuma moodeen in lay xidhana dee adeerow waxaan geeye maaha ilaa anugu xildhibaan dhan oo ayaan gaadhi u qaadaye yaa waa nasiib darro in aniga maanta la yidhaha waa lagu xidhaya dhoodaan baa ilaahay u naxariisto wuxuu yidhi geedku korayaba ninkaan baritaarayey anna laanta ii goynayaan gacalkay moodaayey gabadhii salaaxlaya ninkaan gaarida oo u guurshay anna taydii iga guursadaan gacalkay moodaayey gacanka maroodiga ninkaan galab ka sii daayey anna goof libaax igu ridaan gacalkay moodaayey buu yidhi waa ayaan darro xildhibaan barkhad ood og tihiin inaan xalkaa sitay xambaarsanaa somalilan oo dhan wax walba la doonay ilaa madaxweyne ku-xigeen la doonay guddoomiye maxkamadeed la doonay xildhibaan la doonay inuu maanta aniga la yidhaha waa lagugu xidhayaa gaadhi uu ku xaragoonayo hadda waa ayaan darro horta aduu gaadhigan ma u qaaday oo damiin ma ka noqotay oo lacagtaad u qaaday waa imisa aduu jiraa gaadhigani lacagta waxaabaa u qaaday waxaa ormaa gaadhigan uu jiraa soo maad garan laakiin waa nasiib darro xildhibaankaygii in maanta gaadhi briman banka inuu maanta la yidhaha waa lagugu xidhay hadda waa ayaan darro somalilan mid baan hadda boolojiis ka siinaya laba nin ayaan somalilan maroodi jeex dadkii ka iibinayay baan ku jiraa ee lahaa dahab baan idiin waday war dahabkan nala qaata dahabkii labada nin wuxuu ahaa cabdikariin axmed mooge maayarka isagu dahabkii uu ka qaaligaroobayo wuxuu noqday dheeman waka hargeysa iyo caasimadda siduu u sameeyey iyo green bayna ka dhigay xildhibaankaygina
oo igu gud caddaada maar buu noqday markaa somalilan waxaan leeyahay war maar ahaan idinkamaan iibin barkhade amba dahab baan moodiyey inaan wato ee maar baad wadataa inaan maar wato maan moodeen marka idimaan caameen sida amba igu gud caddaado idinku gud caddaado raalli iga ahaada ninkaa dheemankaa waa ninkaa maanta xildhibaanka dhana ee gaadhigan u qaadeen war ku xarago sida xildhibaanada aniga deenkiisii laygu xidhayo somalilanna waxaan leeyahay weliba dowladda ayadan qaaligaana waxaan leeyahay madaxweynuhu kow ka yahay madaxweyne deenka iga soo bixi aan xildhibaankaa u qaaday ee laygu xidhayo ama somalilan waa masaajidaan ka dawarsanayaaye xildhibaankaygii gaadhigan u qaaday baa laygu xidhayaaye war somalilan oo ii soo gargaara oo iga soo gaadha ninkaan dahabka moodiya maarta igu noqday wataa warqadda premium banka layga keenay ee maxkamaddu waranka layla doondoonaya axmedow markaad idinku warayaal baa tihiine qaadhaanka ka soo qayb gala qaadhaankaan iskaga bixinayo intaanad qaadhaanka bulshada weydiisan ee aanaad madaxweynaha xildhibaankaagii gaadhigaad u qaaday weydiisanin xildhibaanka mala hadasho ma ku tiri diinta iska bixi adeer waan u sheegay waan u dirayba maalintaa hore ee waxaan moodayna waxaana dhammaadeen dee waa tan imankana lale waran baa lagula doondoonaya oo inan gurigayga seexan diinta lagaa doonaya waa intee dadka aad leedahay ka bixiyo xildhibaankayga baan gaadhi u qaaday adeer imanka lacagta arsane 10 kun gogobe warqadda ku qoran 10,112 marka gurigayga ma socda habeenna boorama seexda habeenna berberiye burcaan u baxsadaa oo waranka maxkamadaha suuqi ma maro maalintii ma maro habeenku ma iska marmaraa marka waxaan leeyahay somalilan warde odaygiina madax dhaqameedkaa baan ahaye ma intuu xildhibaanka ahaa baad u qaaday diinta mise ka hor intaanu xildhibaanka ahayn axmed waa igu celcelinin dad badan laakiin isweydiin dee bankiga weydiiya waa gaadhigana magacad ugu xaragoonayo waana intuu xildhibaanka ahaa markaa dee haa waa intuu xildhibaanka haddaa masagoon xildhibaan ahayn buu gaadhiga cadwate adigu isagoo xildhibaana oo barka batuungolihii ku jira oo mushahar badan qaata sideebaad adigu u damiinatay waxaan isru xildhibaankaaga xaragoodo xildhibaanada kale ka xaraga bato oo gaadhigu wataa ha ka xaraga bataa maa isriyo leannu magacayga wuu sitaa waa xildhibaankaygii marka xaragadiisu waxaan islaa waa xaragadaadii waxaan islaa daab baad seetaa laakiin daabki maar buu igu noqdaye somalilan waan ka raali gelinaya maartaa inaanan maar ahaan uga iibin inaanan caameen inaan moodiyey dahab inaan sito ayaan moodiyey war iga raalli ahaada somalilaney wasalaamu calaykum way haddii deynta ugu dambayn haddii iminka deyntaa la bixin waayo maxaa xala in lagu xidho miyaan ahayn waar haddii la xidho xadhigga rag baa loo sameeyey laakiin somalilan intan dhex joogo waxaan qabaa somalilan waa shacab xariira waa dad xariira waa dad inaan somalilan laygu dhex xidhi kareen ayaan anuu qabaa oon 10 kun iyo wax la midaan laygu xidheene qof kulu iga bixinayo way marka intaa laga yimaado guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan wuu hadlay ishir hal isugu yimaado buu yidhi bal arrintaa ka warran sidaad u arkaysa subxaan allah waxa laga yaabaa subxaan allah soo maad garan waniyow guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali waa guddoomiyihii ugu muddada dheeraa ee 12 sannadood guddoomiyaha maxkamadda ahaa oo nin sharci yaqaana waa nin loo soo dhuuman kara maaha anuu habeenkaa waali waxbaa lagu soo shubta odayga waa masiix maa la sarxay ninkii dhammaay dastuurka inoo hayey inuu inagu soo celiyo shirbeeleed maanta oo somalilan ilaahay nimcooyinkiisii qaar badan siiyey nabadgelyo aynu siinay hubkii aynu iska dhignay qarannimadeenii ma og tahay la quweeyey raxmaadkii inoo da'ay oo dadkii qacmaha iswadahaystaan walaalayihiin oo naynu arkeen maanta dhibaato ma og tahay somalilan haysata oo shirbeeleed ay ku qabsato odda kelmaddaasi way ka dhacday guddoomiyaha midda kale markuu leeyahay somalilan reer sheekh isxaaq oo shirac somalilan ma reer sheekh isxaaq baa degaa ma reer sheekh isxaaq baa leh reer sheekh isxaaq majority waxay ku yihiin hargeysa iyo burco togdheer iyo saaxil dee inta kale o dhan dad kale a majority kaga ah soo maad garan adeer oo burcana waa lala degay togdheer iyo maroodi jeex iyo saaxilna waa lala degay ummaddii kale waa la degan tahay ummaddii kale mala haystayaalba
arrintaas waa arrintii laascaanood inaga gooda somalilan la wada leeyahay guddoomiye maxkamadda saraa kule somalilan isaaqow ayuub iyo toljeclana ay idiin noqdaan moogtay gogol ay idiin dhigaan soo waxay isku hayaan isagoo walaaloobay isaaqi soo somalilan walaalowday midda kale dee waxaa fiicnaan lahayd kelmaddan wakhtigay ku habbooneed inuu yidhaahdo dowladdii hore moogtahay cabdiraxmaan ka horreysay ee la ishahaystay ee la eegayey moogtahay ee dhibtu ay jirtay dee markii bay habbooneed uu naadeerkii daahayey uu madaxweynaha ka ahaa maanta ma dowladda cabdiraxmaan ee maanta dhisantay ee nabaddii ka dhisantay markuu yidhaha shirbeeleed ha la sameeyo oo isaaqoo isku kale ma dowladda canqalaaba ma dowladdan ka hor nimaadna anu aan fahmi waa ujeeddada ku jirta xaggan laakiin waxaan leeyahay guddoomiye isaaq waddankan ma dege waa lala degaa waa lala wada leeyahay somalilan arrintaana boolojiis ka bixi haddii meel kale ay ka timidna dee waa lagu mijahabaabiyey arrintaasi arrin adigoo dastoorkii somalilan gacanta ku haya aadanow inaad ku dhawaaqday shirbeeleed maanta ha la qabsado oo isaaq ha qabsado dee wax waddanka qabto maadeer somalilan way dhaqaaqday nabad bay ku dhaqaaqday nimcooyinku ilaahayna siina haddaynu tirin adeer ma toobi karno marka waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin guddoomiyaha ka dhacday arrin ku habboon may ahayn wasalaamu calaykum adeer